daqiiqadaha daacadda ah waa xilliga kelinimada nafsad ahaantiisa qofka marka uu sheekadaas qarsoodiga ab bilaabo waa wada hadalka gudaha taleefankaas kelitaliska ah ee uu qofku naftiisa ku dhageysanayo isaga oo aan ka baqayn in ay xariiqda ku soo dhacayso shaacinta iyo siideynta qirashada iyo soo bandhigida daacadda ah ee gunta ilaa dusha sare ee miyir qabka isku day daacad ah oo lagu fahmo waa mid ka mid ah daqiiqadaha ugu qaalisan noloshu way joogsanaysaa xilligan si ay u muujiso xigmadaheega oo waqtigu wuu joogsadaa si loo siiyo dareenkaas dheer ee joogitaanka meesha aan joogno ee runta ah iyo halka beenta khiyaanada iyo been abuurka ayna ka bannaanayn ee aynu run iyo si daacad ah nafteenna ula khulwoonayno waxaan markaa ogaanay inaan nolosheenna ku noolnahay wakhtigan oo aan u rafaadnay si aan u soo gaadhno aqoontan qaaliga ah ee nafteenna ku saabsan daqiiqadaha waxaa laga yaabaa inay timaado hal mar nolosha oo dhan waxayna mudan tahay cimriga oo dhan haddiise ay dib u dhacdo noloshu waxay ku luntay micno la'aan iyo caqli la'aan been baa lagu cunay baraaruguna wuu soo daahay Dr. Mustafa Maxamuud